bin and shortcut. Windows 10 waxaad awood u leedahay application-kii aad u baahan tahay inaad shortcut ka samaysato ama aad u baahan tahay inaad si degdeg ah ku hesho. adigoo u kala qaadaya laba nooc inaad bin gareysato iyo inaad shortcut ka samaysato. labadaba awood ayaad u leedahay. wuxuuna hoos imaanayaa cashirkan qaybtiisa taskbar-ka. waxaa halkan ku arkaysaa calaamadii start menu-ga ayaad kali ku siinayna. waxaa arkaysaa in applicationskii aan hore u soo qaadanay inay halkan inoo yaalaan. qaybtan waxaad ka arkaysaa inay ku jiraan applicationsyo kala duwan. haddaba sidee ayaan awood ugu leeyahay application halkan ku jiro ay qaybtan ku jiro inaan soo qaadi karo oo keeni karo qaybtan kale. waad samaysan kartaa waliba waxaad awood u leedahay inaad samaysato wax lagu magacaabo organizing. aan ugu hormarsiino bin. waxaa arkaysaa qaybtan inuu inoo yaalo VLC balse qaybtan uusan inoo oolin VLC application-ka ah. waxaad kaliya samaynaysaa application-ka aad u baahan tahay ayaad dul tegaysaa, right click ayaad leedahay, kadibna halkan waxaa ku arkaysaa bin to start. click markii aan ku siino automatically waxaa arkaysaa application-kii inuu inoo soo koray halkan. qaybtaas waxaad awood u leedahay inaad bin garaysato application-kii aad isdhihi karto waad u baahan tahay. adigoo aad samaynaysid qaybta start menu-ga inaad ka dul samaysan karto. waa qaadan doonaa qaabta taskbar-ka aad ugu samaysan lahayd. kaliya ma ahan any application aad u baahan tahay ayaad keysan kartaa qaybta startiga ah. waxaa arkaysaa halkan inuu inoo yaalo mid kale, right click ayaan leenahay, bin to start ayaan qaadanaynaa. sidoo kale qaybtan waxaa ku qoran calculator. haddii aan dhahno right click waxaa arkaysaa inuu leeyahay bin. qaybtan waxaa ku arkaysaa kamerada. haddii aan dhahno right click waxaa arkaysaa inuu leeyahay bin. waxaa dhici karta marka applicationska qaar inuusan bin lahayn. tusaale ahaan halkan waxaa inoogu qoran Excel. Excelka haddii aad right click tiraahdo aad bin tiraahdo ama aan ka soo qaadno application kale aan raadino, tusaale ahaan midkan ay ku qoran tahay Microsoft Edge-ka oo kale. waa arkaysaa halkan ayuu inoo saaran yahay. mid kalena wuxuu inoo yaalaa qaybtan kale. haddii aan dhahno right click waxaa arkaysaa inuusan iiga ogolaanaynin inaan bin gareeyo, waayo halkan ayuu inoo yaalaa ama qaybta kale ayuu inoo yaalaa. marka waxaad awood u leedahay application-kii aad u baahan tahay inaad halkan keeni karto. haddaba sidee ayaan dib ugu celin karaa haddana? waxaad ugu celin kartaa ayaa waxay tahay application-kii aad rabtid ama si accidentia farta kaaga dhacday ayaad rabtaa inaad dib u celiso. waxaad u celin kartaa application-kii aad u baahan tahay ayaad dul tegaysaa, right click ayaad leedahay, kadibna halkan waxaa ku arkaysaa unbin. tusaale ahaan kan ayaan leenahay unbin. waad arkaysaa waa uu ka baxay, right click ayaan dhahay, unbin aan dhahay, waa uu ka baxay, right click aan iri, unbin ayaan dhahay, waa uu ka baxay. application-ka aad u baahan tahay ayaad soo qaadan kartaa ood keysan kartaa qaybtan kale. haddii aad u baahan tahayna waad iska bixin kartaa. intaas kaliya ma ahan, waxaa xitaa awood aad u leedahay inaad samayn karto merge ama wax laisku keenayo ama inaad customize aad ku samaysan karto. tusaale ahaan markaan kaaga soo qaadno waxaa halkan arkaysaa inay ku jiraan office badan. waxaa arkaysaa inuu ku jiro Outlook oo qaybta Gmail-ka ama email-kii aad ka controli lahayd. waxaa ku arkaysaa Word, waxaad ku arkaysaa Excel, OneDrive, PowerPoint iyo wixii markaas hoos yimaado qaybta Microsoft-ga. haddaba sidee ayaan u samaysan karnaa organize? sida qaabkan oo kale qaabkii ayaan u samaysan karnaa. waxaa awood u leedahay tusaale ahaan markaan ka soo qaadno waxaa arkaynaa halkan inuu inoo yaala VLC. waxaan rabnaa inaan laba application kale aan ku soo darsano. waxaan ku soo darsanaynaa calendar, calculator, waxaan ku soo darsanaynaa calendar, waxaan ku soo darsanaynaa kamerada, waxaan ku soo darsanaynaa clock. waxaan arkaynaa marka shantan fail ee aan keensanay qaybta startiga ayaan rabnaa marka inaan merge ku samaysano ama inaan ka samayno qaab organizing ah. waxaad qabanaysaa failkii aad u baahan tahay ayaad click siinaysaa, adigoo haayo ayaad qaadaysaa midkii aad u baahan tahay ayaad ku duldeynaysaa. marka xoogari so difficulty waad dareemaysaa. markii aad dul saarto wax yaro popping up ama samaynaa. waayo fiir markaan ka qaado si aan dul saara fiiri wax yaro popping up oo kale ayuu samaynayaa, waa ku duldeynaya. waxaa arkaysaa inay labadooda ay hal meel isugu aruureen. sidoo kale kan ayaa qaadaysaa, asigana sidoo kale waa ku duldeynaysaa. sidoo kale kan ayaad qaadayna waa ku duldeynaysaa. waa arkaysaa falaar ayay isku bedelaysaa. qaybtan clock ayaa qaadayna, asigana sidoo kale waan ku duldeynaynaa. popping up yar ayuu samaynaa, waa ku duldeynaynaa. haddaba waxaa arkaynaa marka in qaybtan uu ku samaynayo qaab organizing. haddii marka ay dhacdo mid aadan u baahnayn inuu kaa dhex galo folderka aad rabtay inuu organizing kuu noqdo, sidee ayaad ugu bixin kartaa?
right click ayaad leedahay ama click ayaad ku siin kartaa waxa kaaga fudud inaad click ku siiso kadibna failkii aad isdhigi karto uma baahni oo halkan inuu ku jiro ma rabo ayaad qabanaysaa kaliya waa soo qaadaysaa banaanka ayaad keenaysaa waxa arkaysaa failkii ku jiray qaybta organizing kaaga inaad ka soo bixisay oo aad keentay qaybta banaanka waan qabanaynaa booskiisa ayaan ku celin karnaa intaas kaliya ma ahan folderka organizing markaa ku samayso waxaad awood u leedahay inaad ka bedeli karto magaca haddaba waxa arkaysaa qaybtan groupka inuu u samaysan yahay waayo qaybtan waa group waxaad awood u leedahay group walba inaad magac u samaysato qaybtan waxa ugu talagalay tusaale ahaan waxaan dhahay collection oo kale ayaan dhahay okay qaybtan waa qaybta collectionka hoos ayaan yara aadnay click ayaan siinay waxa arkaysaa isla qaybtii collectionka inay tahay waxa arkaysaa marka gudihiisa marka sii furtid qaybta falaarta waxa halkan ku arkaysaa inay kugu qoran tahay new folder wixii aad isku organize gareysay ayuu wuxuu isugu aruuriyay hal folder marka folderkaas ayaad awood u leedahay inaad ka bedeli karto magaca ayaad kaliya ku siin kartaa kadib waxa ku qoran kartaa file oo kale ayaad dhihi kartaa hadda hadii aan dhahno minimize waxa arkaynaa qaybtan inay noogu qoran tahay collectionka markaan hoos sii aadno waxa arkaynaa inay noogu qoran tahay file haddaba marka waan baranay inaad bin soo samaysan karno waxaan kaloo baranay inaad organizing samaysan karto waxaa sidoo kale awood u leedahay inaad samaysan karto movement inaad dhaqaajin karto ama booskii rabtay aad geysan kartid tusaale ahaan booskii aad rabto marka aad rabtay inaad geysato kaliya waad qabanaysaa adigoo folderka gacanta ku haya drag and drop meeshii aad u baahan tahay ayaad geysan kartaa koraad keensan kartaa waa soo qaadi kartaa hoostan oo kale ayaad keensan kartaa waxaa sidoo kale aad awood u leedahay ama aad samayn kartaa haddii ay dhacdo qaybtan binka ah inuu kaa buuxsamo tusaale ahaan kan kaaga soo qaadno kuwaan oo dhan oo aan ku abuurnay folderka ayaan soo wada bixinaynaa tusaale ahaan ayaan kuu samaynayaa waan qabtay drag and drop banaankan keensanay kan oo kale ayaan qabtay banaanka ayaan keenay okay kan oo kale aan qabtay sidoo kale asigana banaanka oo kale ayaan iska keensaday kan oo kale aan qabtay banaanka iska keensaday kan oo kale aan qabtay asna banaankan keensaday okay wali banaanka waxay inoo yaalaan folderkii inoo yaalaan kasoo bixi dheh aan banaankan keensano okay kasoo bixi asigana sidoo kale aan banaankan keensano sidoo kale hal fail kaliya inoogu haray naga bixi banaankan aan keensano okay waxa arkaysaa marka in faylasha ay xogeer aad u tiro badanayaan waxaan sidoo kale kusoo dareynaa kan oo kale waxaan kusoo dareynaa Disney-ga aan wali aan kii waaye okay aan kusoo darna kan oo kale waxaan kusoo dareynaa Microsoft Store hore ugu jiraa okay linkiga oo kale kusoo dar photoga oo kale uu ku jiraa settingska oo kale noogu soo dar Skype-ga oo kale wuu noogu jiraa okay kan aan binandane sorry binkiisi inoogu celi okay waxa arkaysaa marka in qaybtaada start menu-ga waxyaalo badan ay kuugu jiraan waxaa rabtaa marka inaad weynaysato waxaad awood u leedahay inaad weynayn karto waxaad awood u leedahay inaad dheereyn karto inaad gaabin karto inaad kor iyo hoos u qaadi karto markii aad soo qaado muuskaaga qaybta kore waxaa ka arkaysaa falaar oo kor iyo hoos kala aadayo waxa awood u leedahay qaybta kore inaad u dheerayso waa arkaysaa kor ahaan ayuu u dheereysmay waxa awood u leedahay inaad soo yareysato waxaad awood u leedahay inaad dheeraysato qaabkaad adigu jeceshahay intaas kaliya maahan xitaa waxaad awood u leedahay inaad u badan karto dhinaca gacantaada midiga waad qabanaysaa kaliya falaarta iska hubi inuu ku soo baxo labada falaar ee bidix iyo midig kala aadayo waa arkaysaa marka dhinacan ayaad aadi kartaa ilaa iyo intaan ayaad geyn kartaa oo meesha ugu dambeeyo ee maximumka ah marka intaan oo dhan ayaad awood u leedahay inaad ka samaysan karto qaybta taskbarka qaybtan koowaad waxaan ku baranay wax lagu magacaabo marka bin maanta kadib start menu bin ku samayso ma u malaynayo inuu ku dhibi doono qaybtan kale waxaan ku qaadan doonaa marka sidee ayaad awood ugu yeelan kartaa in application aad shortcut ahaan u soo saaran karto qaybta taskbarka aad ayay u fududahay waxaad samaynaysaa applicationkii aad u baahan tahay inaad soo saarato qaybta taskbarka ayaad raadinaysaa hadda waxaa halkan ku arkaynaa inuu inoo yaalo VLC-ga ayaan rabaa inaan soo qaado kadibna aan saarto halkan waxaan ku samaysan karaa laba qaabka koowaad inaan dul taga applicationka aan rabo inuu ii soo koro qaybta taskbarka ayaan dul tagayaa right click ayaan leeyahay kadibna halkan waxaa ka dooranayaa moreka markii aan ka doorto waxaa halkan ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay bin to taskbar click ayaad ku siinaysaa automatically waxaa arkaysaa applicationkii VLC-ga inuu inoo soo koray qaybta taskbarka application walba marka halkan ayaad soo saaran kartaa tusaale ahaan waxaa awood u leenahay ama aan samaysan karnaa waliba
inaan soo qaadno Excel-ka waxa ugu badan oo daily usage-ka ayaa saaran kartaa qaybta taskbar-ka right click ayaad leedahay more-ka ayaad dooranaysaa taskbar-ka ayaad dooranaysaa okay applications-kii kale aad u baahan tahay ayaad raadinaysaa aad isdhihi karto inuu kuu soo koro qaybta taskbar-ka kanoo kale asana noo soo qaad inuu saar qaybta taskbar-ka waxaa inoo soo haray midkan kale lagu magacaabo Word-ka oo kale ayaan raadinaynaa I think yes Word-ka oo kale halkan ayuu inoogu jiraa right click ayaad leedahay kadibna more ayaad dalba kartaa kadibna waxaad dooran kartaa meesha ay ku qoran tahay bin to taskbar marka kor iyo hoos sidan ayaad u socon kartaa adoo ka soconaya muuskaaga qaybtan mouse wheel ayaa la yiraahdaa mouse wheel-kan ayaa ka socon kartaa sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad ka socon karto inaad dulgeyso muuskaaga inaad dulgeyso qaybta halkaana ee ku qoran tahay calaamada drag and drop-ka aad ka dareemaysid oo qaybta page-ka up and down-ka aad ka aadaysid ayaad soo qaban kartaa halkan ayaad keen kartaa sidoo kalena falaarta ayaad qaybtan keeni kartaa sidan ayaad click u siin kartaa waxay ku xiran tahay sida aad isdhihi karto shaqadaada way fududeyn kartaa ama shaqadaada way dheereyn kartaa okay waxaan aragna marka in taskbar-ka aan soo saaran karno application-kii aan u baahanahay haddii halkan aad fiirisid waxaa arkaysaa marka dhowr application inay halkan inoo yaalaan intaan keliya maaha marka horta waxaan u malaynaa wadada koowaad waa inaad right click tiraahdaa kadibna aad soo saartaa qaybtan shortcut-ka waxaa sidoo kale awood aad u leedahay inaad ku soo saarto ama wadada labaad aad ku soo saari kartid waxay tahay inaad qabato application-ka aad u baahan tahay click adoo gacanta ku haayo kiliga wali waa arkaysaa kiliga gacanta ku haya adigoo kiliga gacanta ku haayo ayaad soo qaadaysaa waxaa lagu magacaabaa qaabkan drag and drop waad soo qaadaysaa waxaad dul keenaysaa qaybtan taskbar-ka waad dul daynaysaa automatically waxaa arkaysaa calculator-kii inuu inoo soo garay qaybta taskbar-ka wadadii koowaad waan baranay wadada labaadna waa isla qaabkan haddii ay dhacdo marka fail aadan u baahnayn inuu kuu soo koro qaybta taskbar-ka sidee ayaad isaga qaadi kartaa laba wado ayaad isaga qaadi kartaa wadada koowaad failkii aad u baahan tahay inaad ka bixiso ama aadan u ogolayn inuu kuu koro ama uu kuu saarnaado qaybta taskbar-ka application-ka ayaad dul tegaysaa ama icon-ka ayaad dul tegaysaa right click ayaad leedahay kadibna halkan waxaa ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay unbin ayaad dooranaysaa waad arkaysaa application-kii waa uu ka baxay wadada labaad aad samayn kartid waxay tahay application-ka magaciisa inaad taqaano tusaale ahaan halkan markii aan ka soo qaadno waxaa arkaysaa inuu inoo saaran yahay VLC calaamadda start menu-ga adigoo dul taagan oo sida tan uu kugu kacsan yahay VLC-ga ayaad dul tegaysaa right click ayaad leedahay meeshan ay ku qoran tahay more-ka ayaad dul tegaysaa kadibna halkan waxaa ku arkaysaa unbin from taskbar click markii aan ku siino automatically waxaa arkaysaa inuu ka baxay VLC-ga application-kii oo kuu saarnaa qaybta taskbar-ka intaasna waa mid intaas keliya maahan waxaad awood u leedahay marka inaad samayn karto movement mid alaale midkii aad u baahan tahay inaad kala wareejin karto mid halkan yaalo inaad halkan keen karto mid halkaas yaalo inaad xagga geen karto sidaad rabto inaad u kala dib marin karto midka aad u baahan tahay inaad aad hormarsiiso ama aad gadaal marsiiso ayaad qabanaysaa kiliga adigoo haaya drag and drop booski aad u baahan tahay ayaad geen kartaa waad qaban kartaa ilaa iyo halkan ayaad geen kartaa sida aad isdhihi kartid wuu ku qurxoon yahay ama aad ku horumarsan karto ayaad ku qaadan kartaa marka qaabkan kala horumarinta faa'iido badan ayay leedahay waan qaadan doonaa koorsooyinkeena soo socda marka kiliga ayaa siinaysaa booski aad u baahan tahay ayaad geysanaysaa waana daynaysaa marka application walbo sidaas ayaad u kala dul marin kartaa midka ugu dambeeyo aan qaadan doonaa wuxuu yahay start menu-ga markii aad kali ku siiso waxaad arkaysaa applicationsyada qaar inay kala weyn yihiin tusaale ahaan waxaa arkaysaa markii aan ka soo qaadno midka halkan inoo saaran tahay Microsoft Edge-ka oo kale waxaa arkaysaa in Microsoft Edge-ka icon-kiisa uu yahay mid iska normal ah icon-ka waad weynaysan kartaa right click ayaad dhahaysaa kadibna waxaa halkan ku arkaysaa resize application-ka aad u baahan tahay ayaad resize leedahay waa arkaysaa small wuu yaraanaya right click resize-ka sidoo kale waxaad dhihi kartaa large oo ah ii weynay sidoo kale qaybtan kale haddaan tagno applicationska qaar waxaad ka heli kartaa dhowr options applicationska qaarna waxaad ka heli kartaa laba option keliya marka hadda application-kan qaybta photoska waxaa ka arkaysaa inuu leeyahay dhowr option sida small medium wide iyo large haddii aan dhahno wide waxaa arkaysaa inuu dhirar ka dhigayo waxaad awood u leedahay inaad ka dhigto large oo ah mid weyn inaad awood u leedahay inaad ka dhigto marka intaan oo dhan waxaad awood u leedahay inaad ku controlsho haddaba marka sidee application
aan u saaran karaa ama program igu jira computerka sidee ayaan u saaran karaa desktopka iyadana very easy waxaad awood u leedahay applicationka laba qaab inaad samayso qaabkaas kale waan qaadan doonaa inkastoo ay u baahan tahay qaybta dhaxda ah markii aan tagno ama qaybta oo bilowga dhaxbartanka markii aan tagno sababtoo ah koorsooyinkan waxay u socon doonaan min base ilaa iyo advanced marka anagu aan ku qaadan doono qaabka ugu fudud uu qof walbaana ku fahmi karo haddaba qaabka ugu fudud ee desktopka aad application ku saaran kartaa waxay tahay applicationkii aad u baahan tahay ayaad raadinaysaa tusaale ahaan halkan waxaa inoo yaala excelka ayaad qabanaysaa drag and drop waxaad dulgeynaysaa desktopkaaga waxaa arkaysaa inuu kugu qoran yahay linki click waa ka deynaysaa click ayaad deynaysaa automatically waxaa arkaysaa inuu kuu koray desktopkaaga halka application ma ahan waxaad awood u leedahay application walbood u baahantid inaad soo wada qaadato kadibna aad kaysato desktopka ma samayn kartid in applicationisyo badan inta sida application dhowr xaba inaad hal mar control inta qabatid isla sheelaad gareysid desktopka asaarta ma samaysan kartid laakiin mid walbo aad u baahan tahay inaad soo qaado ayaa dul keeni kartaa desktopkaaga haddii aad u baahan tahay inaad application ama program aad u baahan tahay inuu kugu abuurmo desktopkaaga qaabkaas ayaad u samaysan kartaa qaabkaana waxaan ku baranay wax lagu magacaabo pin and shortcut waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waa inoo iyo cashirkeena xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته